waxaa si habsami ah uga socda xarunta hay'adda shaqaalaha ee magaalada Hargeysa codbixinta doorashooyinka madaxtooyada ee Soomaaliland oo saaka subaxnimadii 7 subaxnimo ka bilaabmay guud ahaanba jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo doorashadii noqonayso doorashadii saddexaad ee madaxtinimada ee Soomaaliland iyadoo shacabka Soomaaliland ay maanta go'aamin doonaan ama ay dooran doonaanba madaxweynaha 5 sano ee soo socda waxaa xarunta hay'adda shaqaalaha saaka ka codeeyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa hore uga codeeyay waxa iyaguna goor dhaweyd soo gaadhay murashaxa xisbiga UCID injineer Faysal Cali Waraabe iyo murashaxa xisbiga talada haye kulmiye Muuse Biixi Cabdi murashaxiintani waxa ay shacabka Soomaaliland ugu baaqeen inay nabadgelyada iyo nidaamka ilaaliyaan isla markaana ay codkooda u dhibtaan si nabadgelyo murashaxiintan oo warbaahinta kula hadlay xarunta hay'adda shaqaalaha waxa ay yiraahdeen socota waa bilowgii qaylo badan baa jirta waxa jirta in laga soo qabanayo labada xusbi dadka qabyaalad ku abuureen ee qasgelinayaan kuyadii askarta qaar baa laga sheegaya inay baarshil yihiin laakiin anagu ilaahay baan aaminaa subxaanahu wa ta'aala askartana waxaan leenahay jananka waxaan leenahay war xil baa ilaahay ka baqa qofkii soo baxay waa qoran yahay maanta anigu dadka waxaan la qaybsanayaa farxadda iyo dareenka sare codbixiyaashu ay ku dooranayaan madaxda dalka maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dareenkaygu wanaagsan yahay dadka codaynayana aad iyo aad ayaan u hambalyaynayaa waxaan ku hambalyaynayaa dulqaadka safka ay taagan yihiin cadceedda si ay u soo kala laheen waxaanu dooran doonaa madaxweyne cusub 3 murashaxabaas ayaa jooga kii soo baxa waa hambalyaynaynaa anna waxaan isleeyahay dhammaan codka u badan waad heli doontaa intiinana waxaan ka rajaynayaa inay codaysaan waraaqad yar ii turtaan intiina taagan ma yaridine kuway maqlayna waxaan leeyahay codka igu roonaada haddii alla yidhaahdo dalkuna nabad buu ahaanaya warwarna ma jiro ragga sharaxanina waa rag wada odayaala dalka danaynaya aan loo baqaynin aad iyo aad baa u mahadsantihiin أحمد محمد حسين سيلاني يدو قوبتنا تاي قوبت أنت بدن أي كعوديان مشرحين الصوماليلاند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها صلاة الدريا شعب الصوماليلاند ملك استوي تشوغان. وها كوهم بليين يا لما أنتوا دين ساكوا طريرين أنا ديبتان عد كودة دور الشدة مدحتوية جمهورية الصوماليلاند. أنا وكم إذا مواطنين الصوماليلاند أنا مشرح مدحويني. عبد الرحمن محمد عبد الله الرو وعن كفر أحسن هاي أنا كغيب قلي أنا موادنا وضعينته دور الشدة وهذا السعودي خدكي أكو عوديين وكافر تيدا كم موضة وعن رجيني الشعب الصومالي الآن إن يسن بدقلياه يجوا احترامه يا شروط إنه لقناي عيدا كأمان كان الله شقينا إياه إن يسن بدقلياه كعودينه waxaan shacbiga leeyahay nabad ku codeeya muwaadin kasta xisbigu doonaha u codeeyo waxaan ku tartamaynaa tartan xor ah oo xalaal ah insha Allah waxaan rajaynayaa inay guul inoogu dhamaato shacabka ku jira safafka ayaa ilaa imika si nabadgelyo ah oo isla markaana kala dambeyn iyo nidaam ka muuqato safkooda ku jira iyadoo kuyu qof kastaaba marka uu codeynayo loogu yeeriyo magaciisa soo kaarkiisana gacanta ku sitaa سليمان إبراهيم حاشي تلفزيون كمان حبنان بولشة تي في حرونتا هيدا شغالها الدولة كشواشيو بين هايني حسبي الله برتنيو قبل والقبحو حسبي الله برتنيو قبل والقبحو بدو انت لقدري نبير لي حاسدك برارها نوكرديو وقد دبيتشرتو حرني ما نبوح سنته مثلتي نوحني حرني ما نبوح سنته مثلتي نوحني
maanta anigu dadka waxaan la qaybsanayaa farxa bulshada Soomaaliland bishaare ma ogtihiin waxbarashadu waa hubkii baahida lagu reebay bulshada Soomaaliland bishaare ma ogtihiin waxbarashadu waa hubkii